waxa isweydiin leh qofka zinada sameynayay oo xumaatada sameeyay markaasi dembiga uu galaayo waa dembi laakiin nafya shaydaan ayaa ku qaadayo oo waxbuu isleeyahay aad ka heshid oo ama markaas shahwo uu gudanayo oo xaaraan ah laakiin qofkan dadka caynaya muxuu gudanayaa way macnaha muxuu ka helayaa qofkan inuu caayo xataa wax uu ku raaxaystay ma ah waa un iska dhay iyo iska tuur saas daraadeed siday u xun tahay waxaa la gaarsiiyey طبعا diinta islaamku waxyaabaha ay u soo degtay waxa loo yaqaan arrin yiraahdo maqaasidu shariica ujeedooyinka ay shariicadu ilaaliso waxa kamid ah shan ayaa maqaasid shariicahaas ay diintu ilaalisaa shantaas waxa kamid ah mid la yiraahdo xifdul ird sharafta in la ilaaliyo oo qofka in yaani sharaftiisa meel looga dhaco aan la ogolayn يعني maadaama yani hadda social mediaha yani sida loo isticmaalayo oo tilmaamaysan ay tahay in qof la ceebeynayo waxa isweydiin leh qofka muuqaalkiisa si uu raali ka ahayn u faafinaya ma isweydiiyay arintan uu sameynayo diintu maxay ka qabtaa ma shay xaraan ah mise waa shay xalaal ah waxa soo baxaysa in uu xaraan yahay qofka in si xun yani loo isticmaalo muuqaalkiisa ama wax laga sheego khudbadii ugu dambeysay dadku dhan ay wada yaqaanaan oo xajatul widaa ayaa waxa ku jirtay ayuha الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم يعني ديجينا يحولهنا يعرضينا حرام أيودين كيهاي إلى أد إلهي كلا كلانتان بمعنى حرامتنمت كذا xilligaas ay ku ekeedo khudbada la jeedinayay dadkii markaa noola ayay khusaysaa oo markaas ay ku joogsanaysaa ma ah waxa la gaarsiiyay inta adduun uu jiro oo aakhira laga gaarayo sidaas ayuu mabda'aasi u taagan yahay marka in qof cirdigiisa yani wax la yeeleeyo yani waa dambiga saas weyn oo xaraanta ah diinta islaamku cirdigaas ilaalintiisa waxay ka soo dejisay qof hadii la caayo oo xumaan lagu sheego waata ilaahay waliba meesha la gaarsiiyay mesela qof haduu zina sameeyo waxa la yiri waxa lagu sameeynayaa in la garaaco oo lagu dhufto 100 jeedal haduu qof caayana yani waxa lagu dhufanayaa 80 kala jar hadii la yiraahdo waxa farqo u dhaxeeya 20 u dhaxaysa waxa isweydiin leh qofka zinada sameeyay oo xumaatada sameeyay markaasi dambiga uu galaayo waa dambi laakiin nafya shaydaan ayaa ku qaadayo oo waxbuu isleeyahay aad ka heshid oo ama markaas shahwo uu gudanayo oo xaaraan ah laakiin qofkan dadka caynaya muxuu gudanayaa way macnaha muxuu ka helayaa qofkan inuu caayo xataa wax uu ku raaxaystay ma ah waa un iska dhay iska tuur saas daraadeed siday u xun tahay waxa la gaarsiiyay kuwa xumaatada ama qadafka sameynaya fajliduhum 80 jalda 80 karbash ku dhuftaan lahay bulshada sumcada ay ku leeyihiina waa la baabiyo waxa li wala taqbalu lahum shahadatan abadan mar dambe ha ka aqbalina wax ay soo sheegeen mar waxa garanaysaa meesha ay diintu gaarsiisay qofkii lagu barto inuu dadka aflagaadeeyo inuu dadka caayo bulshada dhexdeeda waxa loo soo jeeday kaasi faa'iido ma lahayn war uu sheegay oo dambe ha rumaysanina ha qaadanina ka jooga marka yacni si adag ay diintu meeshaasi u samaysay iftira ayaa la yiraahdaa oo qofka oo sameynaya wax dadka ayna ama been abuurasho ama cayn ku sameynaya waxa meesha laga bixiyay inuu qofkaasi iimaan leeyahay iimaanka qiimaha badan ee qofka celinaya qofka waxyaabaha sameynaya waa laga nafiyay oo ilaahay wuxuu yiri inma yaftari alkadhiba alladhina la yu'minuna biayati llahi wa ulaika humul kadhibun yani iimaan malaa'ikaas maxay qof haduu iimaan leeyahay iimaanka wuxuu ka celinayaa wixii yani inuu ka jooga ay tahay يعني ما إنه أما بوليس كعبسنايو أما ما ضمير كيس جودها كجرا وحال رباب وحنو سمايو النبي صلى الله عليه وسلم وحوري قفا وحاد عكرت إنه هذا الكوه الله السوا إنه أبييلين أم وسن وحوين لا هذا الكاس الكوه الله هذا الكاس سببتي سنة تضبعت السنة إنه نارته وكسي هو بنايا كليب ومال يري يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذين كل دلمية وحالة صيدت برد نار أفك أنت لاجليو قول الله ده جيس أنت لاجليو إلى قداتك اللي جيحايو هذا نحكي كلا لقي لنا هدنا اللي جيحايو
markaas nabi wuxuu weydiiyey jibriil kuwan saan loo cadaabayo jeexjeexay afkooda muxuu yahay markaas wuxuu yiri waa kuwa been intay alifaan dadka ku dhex faafiyo oo beentii ay jihooyinka kala gaarto markaasi social media ma jirin waa qof socda warkii sheegi jiray oo hebel saas oo inta uu gaarsiin karo ay tahay laba ruux iyo saddex ruux laakiin maanta qalabkan la haysto halka mar adduunka dhan wada gaaraya qofkii u qaybiyay marka been jeexjeexi ayaa lagu sii badinayaa maxay yeelay inta qof uu gaarsiiyay ayaa aad u badan marka waa mowduuc aad xasaas u ah oo dadkeena loo baahan yahay in lagu baraarujiyo oo laga yaabo inay leeyihiin waan iskaga kaftamayo waan iskaga ciyaarayo run dhiga ma ahayn laakiin laga yaabo inuu sabab u noqdo inuu naarta 70 sano hoos ugu hobto qofka saas sameeyo